لاعبka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Pogba ayaa sheegay bisha January ee sanada 2019 inuu dib ugu laaban doono kooxda kubadda cagta Juventus. Ciyaarankani kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee qadka dhexe kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa sheegay inuusan xilligan u muuqanin waji uu kula joogayo kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana uu sheegay inuusan ku faraxsanayn waqti kale uu la sii qaato kooxda kubadda cagta Manchester United. maadaama warbaahinta wadankaasi Ingiriiska ay aad u hadalhayeen khilaafkii u dhaxeeyay Paul Pogba iyo macallin Jose Mourinho. wiilka kan u dhashay wadanka Faransiiska ee Paul Pogba ayaana markaa xusaya inuusan u dhaqaaqi doonin midkood Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo xidigii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Cristiano Ronaldo oo xilligan ka dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Juventus. waxaana ku rajaynahay in mar kale ay riideeda i rumowda ee kooxda kubadda cagta Juventus, iyadoo la xusay in maamulka kooxda kubadda cagta Juventus ay markaa dalab hore ugu soo gudbiyeen in Paul Pogba ay dib ugu celiyaan horyaalka wadankaasi Talyaaniga. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wali waxa uu raadinayaa daayarka u dhashay wadankaasi Holland ee De Jong. ciyaarankani kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Ajax ee De Jong ayaana markaa si weyn u xiiseynayaan kooxo ay kamid yihiin Barcelona, Borussia Dortmund iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. waxaana koox waliba ay doonaysaa inay markaa qorsheyso qaabkii uu la soo wareegi lahayd xilli ciyaareedka soo socda. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaan aad ula dhacay qaab ciyaareedka daayarkaasi, maadaama laacibkan uu sheegay inuusan meelna kaga dhaqaaqi doonin kooxda kubadda cagta Ajax, waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay waqtiga uu la sii qaadanayo kooxdiisa, isagoo xusay inuusan xilligan ogoleen dalabyada ka soo gaaraya Barcelona, Borussia Dortmund iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. laakiin madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa kalsooni buuxa ku qaba in ciyaaraankaasi De Jong xilli ciyaareedka soo socda ee Barcelona ku guuleysan doonto saxiixa wiilka reer Holland ee De Jong. laacibka u dhashay wadankaasi Brazil ee Neymar Jr ayaana markaa doonaya inuu dib ugu laabto istaadiga Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona. ciyaaraankan reer Brazil ee Neymar ayaa xusay inuusan wada xaajood la sameyn doonin madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Real Madrid oo in muddo ah ku baadi goobayay adduun lacageed gaaraya 300 milyan oo lacagta Euroga. laacibkani Neymar ayaana markaa doonaya haddii uu isaga dhaqaaqo caasimada wadankaasi Faransiiska ee Paris inuu dib ugu laaban doono istaadiga Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaana ciyaarankani Neymar uu yiri aad ayaan ugu xiiso runtii saaxiibadeeda qaaliga aan ku lahaa kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaa sidoo kale farxad ah in saaxiibkay gaarka ahaa ee Philippe Coutinho uu ka dhex muuqanayo kooxda kubadda cagta Barcelona, waxaana rajadeedu ay tahay inaan markaa dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Barcelona marka aan ka faaruqo kooxda kubadda cagta ee PSG. ayadoo ciyaarankani Neymar ay sidoo kale aad u xiiseynayeen kooxo ay kamid yihiin Manchester City iyo United-ka oo doonayay in Neymar ay markaa u dhaqaajiyaan horyaalka Ingiriiska. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaana markaa xusay in Koulibaly meelna uusan kaga dhaqaaqi doonin kooxda. laacibkan ayaana si weyn u xiiseynayeen qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. dalabkii ugu xoog badnaana waxa uu ka soo gaaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxaana la sheegay laacibkan u dhashay wadankaasi Senegal ee Koulibaly oo heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Napoli kaga eeg June sanada 2021 ayaana markaa laga dhigi doonaa heshiis gaaraya sanada 2023. waxaana sidoo kale la sheegay Koulibaly inuu aad ugu faraxsan yahay in sanad aad u fara badan uu ku sii sugnaado kooxda kubadda cagta ee Napoli. ciyaarankani reer Senegal ee Koulibaly ayaa kooxda kubadda cagta Napoli waxa uu ku biiray sanadii 2014. daafacani 27 jirka ee Koulibaly ayaa hore lagu qiimeeyay adduun lacageed gaaraya 90 milyan oo lacagta Euroga. madaxda kooxda kubadda cagta Napoli ayaana markaa xusaya in wax waliba ay dhaca aysan suurtagal noqon doonin in Koulibaly uu si fudud kaga ambabaxo kooxda kubadda cagta ee Napoli ee horyaalka wadanka Talyaaniga. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Jose Mourinho waxa uu leeyahay waxaan kamid ahay macallimiinta dunida ugu wanaagsan ee waqtiga kan xaadirka. Jose Mourinho oo hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya madaxda kooxda kubadda cagta ee Manchester United. waxaana Jose Mourinho uu xusay wax waliba aan kala kulmo madaxda kooxda kubadda cagta Manchester United ma noqon doono mid u jawaaba, waayo waxaan kalsooni buuxa ku qabaa kartida aan u leeyahay hogaanka koox walba ee ka dhisan dunida. sidaasi waxaa yiri macallin Jose Mourinho. waxaana sidoo kale uu ka hadlay jaaniska ugu dambeeya ay siiyeen maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United oo lagu xiray in Jose Mourinho uu guul uu ka soo gaaro kulanka Burnley ee markaa ay kaga horjeedaan horyaalka Ingiriiska. sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa si gaar ah u difaacay macalinka kooxda Manchester United macallin Jose Mourinho, waxaana uu yiri
Jose Mourinho waa macallin khibradiisu aad u sareyso waana macallin ka weyn in xilligan muran aad u fara badan kooxda laga geliyo waana macallin guulo aad u fara badan u horseedi kara kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana muhiim ah in macallinka laga yareeyo cadaadiska faraha badan ay saarayaan maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United sidaasi waxa yiri macallin Pep Guardiola ayadoo la sheegay in Jose Mourinho uu ku bilowdo bilowga horyaalka Ingiriiska guul darooyin taa ay niyad ay ka qaadeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayadoo la sheegay in qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Manchester United ay wadaan qorshe ay ku xumeynayaan Jose Mourinho ay kaga diraan istaadiyaha Old Trafford ee kooxdaasi tobaraha kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Unai Emery ayaa xusay in Mesut Ozil oo muhiim u yahay kooxda Arsenal waxaana macallin Unai Emery aad u amaanaya Mesut Ozil kartida oo u leeyahay in uu markaas si weyn kaga soo dhex muuqdo koobka laga ciyaarayo gudaha Ingiriiska Mesut Ozil runtii waa ciyaaryahan aad ugu xiisaan mar waliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal anigu shakhsiyan farxad weyn ayay ii tahay ayaa laga soo xigtay macallin Unai Emery waxaan kalsooni buuxa ku qabaa in ciyaaryahankaasi u dhashay wadankaasi Germany Mesut Ozil uu yahay laacib si weyn kaga soo dhex muuqday koob aad u fara badan ee laga ciyaaro tartamada kala duwan ee qaaradda Yuruba waxaana kalsooni buuxa ku qabaa in Mesut Ozil uu yahay xidiga u suurtagelin kara guulo aad u fara badan kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Unai Emery ayaana xusay in xidig walba ay kamid ah kooxda kubadda cagta Arsenal in uu ka farxiyo waxaan isku dayaa sidaan markaa u xoojin lahaa wada shaqeynta ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Arsenal Ozilna wuxuu kamid yahay xidigahan ugu jeclahay kooxda kubadda cagta Arsenal ugu dambeyntiina madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez ayaa si weyn u difaacaya lambarka 7 ee marka loo gacan geliyay xidiga dib ugu soo laabtay kooxdaasi Mariano 25 jirkan dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markaa la sheegay inuusan u qalmin lambarka 7 oo marka uu guddoonsiiyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez waxaana madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez uu sheegay in Mariano Diaz uu qalmo lambarka 7 uu ka hayaamay Cristiano Ronaldo waxaan ogsoonahay in Mariano uu kartidiisa uu ku muujiyo horyaalka ligwanka dalka Faransiiska tan iyo xilligu ciyaariyo kooxda kubadda cagta Lyon Florentino Perez ayaana markaa sheegay in Mariano uu ka weyn yahay lambarka 7 waana xidig runtii kalsooni buuxa gelin kara taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid waana mid aan u doortay in la guddoonsiyo lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana kalsooni weyn ku qabaa in Mariano uu ka wanaagsanaan doono xidigii hore u soo qaatay lambarkan 7 ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ayadoona ay ku taageereen qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid go'aanka uu gaaray madaxweyne Florentino Perez oo kalsooni weyn ku qaba xidigani u dhashay wadankaasi Spain ee Mariano Diaz tan iyo xubinta xigta intii dib dambe u kulmi doono waa saaxiibkii Maxamed Ibrahim Biibaaye ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo